السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال meel kastoo dunida ka joogtaan kusoo dhawaada Cabdibajid Network waa mar kaliya barnaamijkeena tiknoolajiyada daawadayaal waxaynu toddobaadkan kusoo qaadan doonaa qaabka aad ku ogaan lahayd cidda Facebook kula isticmaalasa iyo sidaad uga hortagi lahayd insha Allah taala kusoo qaadan doonaa soo dhawaada daawadayaal ugu horeyn Facebook aad ku dhufan doontaa saddexda button baad ku dhufan doontaa kadib waxaad ka tagi doontaa settings and privacy marad ku dhufato settings baad ka sii dooran doontaa settings marad ku dhufato wuxuu ku soo gelin doonaa halka buu keeni doonaa markaa halka uu soo geliyo waxaad ka sii dooran doontaa meesha ku qoran tahay password and security aad ku dhufan doontaa halkaas inuu ku soo geliyo haddaba meeshan socona ma halkaas where you are logged in marka waa meesha wax weey mobile kasta iyo computer kasta ama aalad kasta oo laga galo Facebook-gaaga halkaas uu kugu soo bandhigaya bartan uu kugu soo bandhigaya marka meesha uu kugu soo bandhigaya waa meeshan marka haddaad doonayso inaad wada ogaato oo aragto see all badan doontaa kadib marka wuxuu ku soo dhigi doonaa mobilada laga galay Facebook-gaaga iyo computerada marka waxaas oo dhan ku soo dhigi doonaa aniga mobilkayga oo kaliya ka isticmaalay ka uu ii sheegaya Samsung Galaxy J5 Prime Hargeysa ay jooga Soomaaliya hadda waa active oo amaana hadda uu ku jira weeyaan aneedu intaas halka ku tus doonaa id alla idii ku jirta marka hadda doonayso inaad iska saarto hadhow toolo qofka isticmaalaya saddex dhibcood halka geeskaas ee taaban doontaa markuu soo saarade wixii kula isticmaalaysa kale kadibna waxaad ka odhan doontaa log out mudan doontaa haddaad halkan lafteeda ku dhufato log out of all sessions waad ku odhan kartaa dhammaan haddaad tiraahdo markaa wuu ka wada baxaya macal kalimka adigu kaaganaad ku isticmaalayso ayaa ka baxaya xataa waxa kaloo samayn kartaa inaad passwordka aad bedesho Facebook-gaaga halkaas oo ku dhufan doontaa ku qoran tahay change password sidoo kale waxaad ku xidhan kartaa security ama code lagu soo diri doono oo lagu soo wargelin doono waxaad isticmaali doontaa waxa loo yaqaano use two factor authentication marka authentication-ka wuxuu ka caawinayaa in lagu soo diro yani alarm lagu soo diro oo fariin lagu soo diro marka waxaad ku xidhi kartaa Google-kaaga ama waxaad ku xidhi kartaa ama text message badan doontaa igu soo dir ama security key saddexda ka doonta dooran kartaa anigu waxaan ku xidhay igu xidhan Google-kayga marka wuxuu soo diri doontaa muxuu ahaa verification code buu igu diri doonaa marka ayuu ku soo diri doonaa marka qofku hadduu yiraahdo gal Facebook-gaagi wuxuu weydiinayaa maxay code ayuu weydiin doonaa marka adigoo lagu soo wargelinayaa notification baa lagu siin doonaa ama notice baa lagu soo diri doonaa xagga hoose lafteeda waa adiga arkaya get alerts about unrecognized logins halka lafteeda ku dhufan kartaa oo in waxa lagu soo wargeliyo marka qaabkaas aad ku ogaan kartaa qaabkaas aad ugu hortagi kartaa intaas insha Allah taala aan ku soo koobi doonaa daawadayaal intii ku kulmi doona barnaamijkan mid dhow waxaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan subscribe saar channelka haddaad nagu cusub tahay si aad noo dhiirigeliso like iyo share tana naga ilaabin